الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولي waxaan ku dhex jirnaa ficilka min xaysu الصحة والاعتلال hore waxaan usoo qaadanay laba qeyb oo ka mid ah ficilka saxiixa saalim iyo mahmuuz darsigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qeybta saddexaad ee ficilka saxiixa al-i'laalu fi al-mudacaf oo laga wado isbedelka ku imaanaya ficilka mudaacafka markii loo isnaadiyo damaa'irta laba qaybood weeyaan qaybta koobaad wujuub al-idgham bimacnaa marba waxa waajib noqonaya caynul kalima iyo laamil kalima in la isku shado sida radda oo kale i'laalka labaadna waxa weeyaan fakku tadciifi tadciifka ayaa la kala furfuraya bimacnaa shadki baa la kala furfuraya sida radadtu oo kale khulaasatul qowl i'laalka ku imaanaya ficilka mudaacafka waxa loo qaybinayaa wujuub al-idghami wa fakku tadciifi إعلالك كوبادان ku bilaabaynaa wujuub al-idgham si sharaxa noogu fududaado saddex qeybaan ka dhigaynaa ficilka maadiga ku bilowno yajibu al-idgham idghamka waxa waajib noqonaya fil maadi ficilka maadiga dhexdiisa idha lam yattasil haduusan la xiriirin bihi bil fi'l al-maadi ficilka maadiga haduusan la xiriirin damiir rafc mutaharrik damiir rafc mutaharrik waxa laga wadaa saddex shay horta waa kow taa'ul faa'ili waa midda ku jirta sida dhahabtu ذهبت ذهبتي مثل لبعضنا وحويان نا الدالة على الفاعلين ونا ذا كترته ذهبنا أو كترجميسة متكلم جماعة قيب صدحات وحوي نون نسوة والنون تكترته مثلا ذهبنا وحين تصيان جماعة مؤنثة مركا دان دي بقصة نقلنا فعل كماضنك إدغامك وحواجب نقلنا مركا أوسن فعل كاسي لحرير ضمير رفع المتحرك مثلا مد ضمير رفع المتحرك لما حرير مدت سيدو كلا مد مدو مد ألف الاثنين بلا حريري مدون واو الجماعة طيب وحان مركنا كبرى ركتد مد أصل كيد ومدد سببتنا وحي تعالي فعل كثلاثي صدح وزنب لها فعل 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 مركا مد أصل كيد مدد بوها حركة دالك كوات سارا ayaa la iska tuuray laba xaraf oo isku mid ah midka horena saakin yahay kan labaadna mutaharrik waa tacriifka shaddada waxa marka uu noqday ficilkii madda qaybta labaad wujuub al-idgham fi al-mudari' ويجب الإدغام في المضارع في حالتين إدغامك واجب نقونيا ficilka مضارع dhexdiisa laba xaalad markii la helo tan koowaad إذا لم يتصل بآخره شيء haduu ficilka aakhirkiisa waxba la xiriirin ficilka مضارع waxa la xiriiri karana waa nuun niswa نون التوكيد ودنعه إيو ألف الاثنين واو الجماعة إياء المؤنثة المخاطبة ودنعه صدح عندما باب فعل كمركة لحريران مقع كلا يشان وحلو يقنع الأفعال الخمسة مركة شن تاني هدو كمرين هاي فعلك كو وحاكل الشرط في حالتي الرفع والنصب فعل كان نغض مرفوع أما منصوب مركة سوحة واجب نقونا يا إدغامك مثلا يمد يرد يفر يوحي لمده يمد أصل كذا وحوها يمدد على وزن يفعل لبدا الدال متك هره أي وحلقة توري حركة طلب للإدغام كذب حاكل مية لبا حرف وسكمدة متك هرن وياه ساكن كان كلن وياه متحرك شد إيمانيسة مركز وحو نقضي يمد وحاكل كبر عركتها وحنكو قيدني في حالتي الرفع والنصب فعل كأنه مرفوع يهي سيدا يمد أو كله أما وياه منصوب سيدا لن يمد أما حالة الجزم فلا إدغامك واجب من نقنيه حالة اللبات إذا كان من الأفعال الخمسة فعل كمضارع هدوك يهي من الأفعال الخمسة سيدا تمدين تمدان يمدان تمدون يمدون مرك اللبات عن حالة مركي لهلو أيه حواجب نقنيه الإدغام قيب صدحات وجوب الإدغام في الأمر ويجب الإدغام في الأمر فعل كأمرك dhexdiisa idqaamku wuxuu waajib noqonayaa إذا كان haduu noqdo ficilka amarka ma'khuudan mid laga soo qaatay min al-af'aal al-khamsa duruusta hore waxaan ku soo baranay ficilka amarka waxa laga soo qaataa ficilka mudaarica مثلا تمدين وفعل من الأفعال الخمسة dib ugu noqo siyaaqatu al-fi'l al-amri حذف حرف المضارعة iyo تسكين حرف الأخير تسكين حرف الأخير waxa lamida حذف النون marka sida darteed nuunta iyo taada marka iska xadaftid ficilka waxa ku soo haraya muddi idghaamka meeshaan oo kale marka waajib waaye
siduu awalba waajib waa ficilka mudaarica. waxaa la mida tamudaani amarku wuxuu noqonayaa muddaa. sidoo kale tamudduuna amarku wuxuu noqonayaa mudduu. marka saddexdan nooc ee amarka ah muddii, muddaa, mudduu waxaa waajib noqonaya alidqaam sababto asalkooda wuxuu ka yimid min alafcaal alkhamsa. marka intaasaa lagu soo koobi karaa wujuub alidqaam. هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.